ويجي هراء الميشن مرينا أبار بعدين ده كسبودي لكن ما أنت واحد مقطع شو ينسي له كفي عينها وكقروح بدنها وكدقيها قرح دي بقى ما أنت عن قرح كل اللي مشرته لك حاجة أبو عجار صنطي لك بيت حولي بقل بيكين مرجع حاضر اسكفول ده هذا السلام daawadayaal waxaan sii gelaynaa magaalada Wajaale oo ku taala xadka Somaliland iyo Ethiopia ama dawlad deegaanka Soomaalida iyo Somaliland waa magaalo xagga ganacsiga aad ugu horeysa oo kamid ah magaalooyinka ugu mashquulka badan marka noqoto dhanka ganacsiga sidoo kale magaaladeenu waxay leedahay banka weyn ee Wajaale oo dhanka beerashadana aad bay ugu horeysa waa mid kamid ah magaalooyinka Somaliland dakhliga ugu badan soo xiraya haddaba waxaan doonayaa inaan maanta muuqaal aan idinka soo duubno magaalada Wajaale magaaladan waxaa isugu yimaada dadyow ka kooban Soomaali, Ethiopian iyo dadyow kale ama qowmiyado kale oo yimaada inay ka ganacsadaan halka qaarna ay alaabooda u soo iibgeeyaan kuwa kalena ay u yimaadaan inay ka xamaashaan oo ay nolol maalmeedkooda ay ka soo baxaan magaalada inta badan markaad dhex maraysid waxa ku badan bajaajka ama tigaha kuwaas oo xaafad ka soo qaadaya oo xaafad kale ku gaarsiinaya amaba suuqa ku geynaya oo lacag yar lagu raaco magaaladu ma aha magaalo sidaa u sii weyn ma aha waa magaalo iska kooban dhismo ahaan inkastoo ay horumar ku tallaabsanayso oo ay isbedel fara badan uu ka muuqdo ganacsiyada aad ka fara badan ee magaalada Wajaale lagu kala iibsado wax kamid ah isku sarifka lacagaha sida dollarka birta iyo lacagta Somaliland iyo sidoo kale amaba alaabaha dalka dibadiisa laga keeno oo dhar u badan oo ay ku jiraan saacadihii iyo qalabka kale ee la isku qurxiyo inta badan Ethiopia waxay soo iibgeysaa waxyaalaha ay soo saaraan sida khudaarta iyo waxyaalaha la midka ah halka Somaliland ay halkan soo iibgeyso alaabaha ka yimaada dalka dibadiisa ee dekada berbera ka soo dega waxaan doonaynaa inaan maanta muuqaal ku saabsan magaalada Wajaale dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo horumarka ka socda inaanu idin soo duubno muuqaalka hadduu kusoo gaadho subscribe saar haddaad nala joogtaan like saar aad iyo aad ba mahadsantiin kusoo dhawaada muuqaalka sidaa darteed Cabdilaahi Boosaaso sorry sidaa darteed wuxuu businesskiisa ugu magac daray isla magaciisi waa kan mulkiilaha meherada Mr. Cabdilaahi soo dhawo walaal Cabdilaahi soo dhawo mar labaad iyo mar saddexaad ba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay booqashadiinan ramsiga Wajaale waa magaalo ganacsi waa magaalo aad iyo aad u wanaagsan welcome ma kulanahay bal ka waran dhaqdhaqaaqa meheradaha iyo businesska maadaama birtiidin ku kacday in badan maxay saameyn idinka ku yeelatay wallahi kulay way soo jiraan saameynta magaalada Wajaale saddex lacag wax ka shaqeeya saddex lacag birtii iyo dollarkii iyo laantii marka kulay aad iyo aad bay dadkan u dhibaataysan yihiin dollarkana Allah iyo wax ilaahay waxa wax ilaahay ku xidhan weeyaan wax laga qaban karaa ma aha laakiin lacagta Somaliland shilinka Somaliland way fadhidaa waa sideedu wax dhaqdhaqaaqa ama wax sixir barro ku yimi dhaqdhaqaaqa iyo circulation ama wareegii lacagta Somaliland ma jiro xagga dollarka iyo Ethiopian kuma ku kacay waa dhaqa birtan weyn ha birtiin businesskiina dadka ugu badan ee ka iibsada xagee ka yimaadaan ma xagga Somaliland mise xagga Ethiopia wallahi dhaqa Ethiopia ka yimaadaan dadka ugu badan wax ka iibino waa Ethiopia weeyaan marka lacagta ugu badan isticmaashaan waa birta weyn ka waran marka meherada dhaqdhaqaaqeeda iyo suuqaba aad iyo aad wallahi wanaagsan waa ma sha Allah weey imika waa stable u degan yahay waa iska degan yahay okay weey si fiican buu wax leedin ka iibsada ma sha Allah ilaahay idin barakeeyo baan idin leenahay dhammaan akhyaarta iyo daawadayaasha nagu xiran waxaan leenahay ka warhaya meheradan oo iyaduna leeyahay Mr. Cabdilaahi Boosaaso Bacadle sama daawasho wanaagsan imikana suuqan hore u gali doonaa insha Allah bal meheradaha kale ee tan iyo wixii la mid ah ayaan vlog idinka soo duubi doonaa insha Allah waxaan doonayaa markii hore in magaalada Hargeysa qabto oo wadada Hargeysa bypass aan iyadana wax idinka soo duubo laakiin xilli dambe ayay igu noqotay waxaan markaa isku dayayaa inaan bal businesska iyo suuqa magaalada aan wax ka gaadho isla markaana aan vlog fiican idinka soo duubo dad badan baa u dheg taagaya oo isla markaana doonaya bal dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga Wajaale daawasho wanaagsan baan idin leenahay alaabada ugu badan ee halkan aad ku iibinaysaan dharka xaggeed ka keentaan Dubai baad ka keentaa Turkiya inta badan ma businesskiina ma Dubai iyo China inta uu ka yaada inta baad ka keentaa marka dunyada dhan bidin ka yimaada dunyada dhan ka yimaada meesha waa geeska Afrika weey waa dekada geeska Afrika ee qalalan baa leeyahay Wajaale
ganacsadigu aad iyo aad buu ugu horumaraa qofka business innovation
go'shaalla iyo shaadhadh isku eg dhammaan isteeladii ugu dambeeyay dhalinyarta waddanka ku nool oo buri seesa kamaradii wax walba waad ka heli kartaan meeradan daawasho wanaagsan baan idin leenahay waa meherad kaloo iyaduna ku taala suuqa magaceed suuqa wajaale ku taala electronics waxay ku taala area masuu furqaan ama alhuda ay u dhowdahay la socda daawasho wanaagsan مهرد مقعد مهرد النوع اللي بيع الإلكتري واحد كنت على مقالة جناحيات كوتش على كنت على ومهرد إلكتروني ويان وحنا كنت تام مهردا أو قيمة يبرز كفي على استمر كانوا معاميشة سيدا وقف في عنو سودوية مهرد كور هيا إن شاء الله دمان تعوديش نجح لنا الدين ك بيع وحدي هاي صار دمان إلكتروني بس اللي مروح هذه موبيلة دي كوب شيء دبي تشيكن alaabtii chickenka lagu shiiday ay ka mid yihiin bahala halka yaala sadarkiisaan kuwii jabista keegagii jaajaradii qaybisooyinkii uufaradii yahay ku xidhnaada dhammaan daawadayaasha nagu xidhan gaar ahaan dadka wajaale ka adeegta meel kasta joogaan ama Itoobiya ama Soomaaliland joogaan meherada ka warhaya insha Allah daawasho wanaagsan baan idin leenahay salaadii baan ugu jiraa salaadan aadina intaasaan ku soo gabagabeynaa vlog quruxda badnaad ka soo doonay magaalada ganacsiyeedka wajaale subscribe like and comment nahna dhaafina aad iyo aad baa mahadsantihiin